waxaa habeennimadii xal ahayd lagu qabtay gudaha xarunta gobolka Hawd gaar ahaan madaxtooyada gobolka Hawd xaflad ay ka soo qayb galeen shacabka madaxda heer gobol heer degmo iyo dhammaan waaxyaha kala duwan ee dawladda waxaana loogu talagalay in xilka loogu wareejiyo agaasimaha aqalka madaxtooyada ee gobolka Hawd oo dhawaan soo magacaabay wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland ugu horaan waxaa halkaasi hadallada iska daba maray odayaasha haweenka oo dhammaantood u mahad celiyay madaxweynaha Soomaaliland waxaan aad u hambalyeynaa dekada Berbera ballaarinta lagu sameeyay shirkadda lagula soo heshiiyay in ay wax qabad iyo gashato inaguna aynu ka faa'iidno marka heshiiskaasi maadaama ku soo beegmay ciidal adxiina caawa inaynu halkan uga dabaaldegno ayaa qorsheenu yahay xukuumadda ka soo shaqeysay ee uu horkacayo madaxweynaha Soomaaliland aynu uga mahad celino dawladda horta way mahadsantahay aad iyo aad bay u mahadsantahay waxa mahadsan oo dadka oo dhan ugu mahadsan bada saabkeena in soo hor fadhiya ee wax walba inoo qabtay waxa weeyaan wax qabadka dawladda wixii ay inoo qabatay waynu ugu mahad celinaynaa xaqiiqatan laakiin haddana wax badan tabashaa jirta sidoo kale waxa ka hadlay maayirka degmada Balligubadle iyo agaasimaha cusub ee madaxtooyada gobolka Hawd Naasir Haruun Haybe madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo oo hiirgeliyay madaxtooyada aynu caawa fadhino aynu xaflad ku qabsanay wasiirka madaxtooyada Maxamuud Xaashi Cabdi oo isaguna wax fara badan intii madaxtooyada yimi ka qabtay oo soo magacaabay maamul cusub agaasimo cusub waxaan marka hore u mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud go'aansaday inuu ka dhigo hoygii halganka ee Balligubadle marka hore waxaan waan u mahad celinaynaa marka xiga waxaan u mahad celinaynaa wasiirka madaxtooyada isaguna hawshan ka qayb qaatay gunaanadka xafladan waxaa soo afmeeray barasaabka gobolka Hawd Ibrahim Cali Xasan oo khudbad dheer oo ka jeediyay qaybteeda ku aadanayd madaxweynaha qaranka Soomaaliland madaxweynaha horumarka madaxweynaha bilicda wadanka madaxweynaha halganka ku suntan halgankii qaranka oo halkan runtii caawa aynu joognaa ku dabaaldegaynaa xaruntiisii tahay oo aydan idinku isku cusbayn oo inankiini noqon hawsha wasiirka madaxtooyada Maxamuud Xaaji si gacaltooyada uu qabo gobolka iyo dadkiisa degan ee runtii igala shaqeeyay baan aad iyo aad ugu mahad celinayaa runtii heshiiskii oo dhamaaday dhamaantay runtii gobol ahaan dadkiisana wuu fadhiyaa haldoorkiisana wuu fadhiyaa عبد الرحمن سمري تيفي عالمي هون كيبل تيفي حرونت قبل كاود